adkaatay wadahadaladii xukuumadda iyo mucaaradka Somaliland oo meel halis maraya. bar 2022 sanadkan ay dhacayaan waxay ku badbaadi karaan bishan in la furo ururada siyaasiga ah ayaan ku badbaadi karnaa haddii muddada imika la joogo doorashadii waxay ku dhamaanaysaa 13 Noofambar maannaka ka dambeynana anaba way naga dhacaysaa maxay ogaan weydeen in iyaguba ka dhacayaan maxay ogaan weydeen inaan sidaan ku safe gareyn karnaa ay tahay cidda qodha sharciyada dalka ku hadhaysa waa madaxweynaha maxay ogaan waayeen annagu waxaanu la daba taaganahay oo ku qaylinayna intanoo dhibihi intaanay dhicin waa in doorashadii qabsantaan waa inaan farsamadii halaa waa inaynu qaraarkii halaa waa inaynu sharciyada raacna arrinka waxaan leenahay marka la yiraahdo madaxweynuhu madaxweyne maaha xilligiisii baa dhamaaday marka xisbiyadii qaranku ay leeyihiin wadaadadan madaxweynuhu uu magacawday marka ay leeyihiin xeer number 14 kuma dhaqmayno oo ururada siyaasiga ah abuurmaya ma aqoonsanin marka ay leeyihiin dastuurka qaranka raaci mayno marka ay leeyihiin law number 52 2012 maxaan ku dhahday waxa la yiraahdaa xeerka nabadgelyada guud waxa dastuurka ka dambeeya qodobka qeexa ee sharciga qeexa ee in kala hagaan ee maxkamadaheena iyo bileysku ku shaqeeyaan waa isaga waa law number 52 oo kama aqoonsanin haddaba cid ay aqoonsan yihiin baa iyaga la weydiinayaa taa awgeed baanu leenahay sharciyada bannaankay ka yihiin annagu waxaanu leenahay number 1 waa marka ugu horeysa xisbiga kulmiye haddii aanu nahay waxaanu diyaar u nahay barnaamijyadii wadahadalka ee ku saabsanaa sharciyada iyo nabadgelyada iyo qawaaniinta doorashooyinka Somaliland in laga wada hadlo waa laba waxaan leenahay maanta xaaladda siyaasiga ee dalka wax dhibaato ka jira oo nabadgelyo darii ma jiro waxaan kaloo leenahay maanta waxa saaxadda siyaasiga ku soo biiray dhowr iyo 10 urur siyaasadeed baa maanta ku soo biiray midna anaku laba saaxiib nihin mid waliba wuxuu doonayaa inuu soo baxo mid waliba wuxuu doonayaa ka kale inuu reebo annaka waxayna doonayeen waa wada mucaarado inayna wada reebaan hatta ahaatee maanta waxaanu annaka kaayagu badkaa khamaar buu yaalaayo waa noogol ururo ku meel gaadha baanu imika noqonaynaa saddexdayadu dantaana khasbaysa inaanu maxaan ku dhahdaa ururada ku meel gaarkaa noqonayna tartanka siyaasiga iyo dimuqraadiyadana khasbaya inaanu badka khamaarna isdhigno damaanadna aanan haysanin inaanu berita soo baxayno laakiin inaanu dhigidno oo haraadno oo u qaylino oo u orodno oo suxulduubno inaanu soo baxno wax ka galabay Soomaalidu tiraahdo taasna arrinta aanu qabnaa waxa weeye waa taa wadadana ka nalamida xuquuq bay leeyihiin xuquuq siyaasiye bay leeyihiin xuquuqdooda ولا مدحوينانا كبريين ولا كلميانا كبريين ولا أعد بي كبريين ولا وضني بي كبريين حيركا يشرعيكا دورشادا نمبر 91 أيام مرة أيام وحكوسا أرورين أيام حيركي دورشادا إلا لبدي يكون يا لبدي لبدا حربها جاية nothing more nothing less كلية وحو كجدوية doorashada markaynu baarlamaanka goonida galeynay barna loo inta local government-ka goonideeda galeynay barna madaxweynaha gooniga galeynay xeerkaasi wuxuu kaga duwan yahay saddexdii xeer baa la isu keenay waxa la yiraahdaa harmonization-ka lagu sameeyay saddexdii xeer baa la mideeyay xeerkaas laga soo saaray xeerka imika maanta taagana ururaduna waa ka waxa kaga baxaya qaranka azaabta siyaasiga ah dantooda iyo sharciyadooda iyo dimuqraadiyadooda iyo hanaanka dawladnimo sida ugu tartamayaan iyo ka helaan sidoo hadhowta ku maamulayo waxay ku xiran tahay nabadgelyadana inay ixtiraamaan maamulku sida uu yahayna loo raaco